sida awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku boorinayaa dhallinyaronimadu fursad laga haniimaystay inay tahay fursad u baahan haniima laakiin macalasaf dhallinyartu inta badan fursadaasi cayaar iyo boodbood iyo daawasho iyo wax kale ku lumiya nabi maxamedna wuxuu leeyahay war waqtigaasi calayhi salaatu wasalaam waa waqti haniimaysi u baahan saa daraaddeed buu nabigu yidhi shan ka haniimayso inta aan shani kuu iman war dhallinyaronimada ka haniimayso ka faa'iidaysa buu nabigu leeyahay inta aan gabogu kuu iman markaad weynaato caqligaagu si fiican buu u fakerayaa tajribada iyo experience-ku wax badan bay kuu sheegayaan laakiin tamartu wax yar bay fulin karaysaa tamartu wax yar ayay fulin karaysaa waxa ballaadhan ee maskaxdu arki karayso ama ninka dhallinyarada ahi waxuu doonu fulin karaa saa daraaddeed uu nabigu leeyahy war intaad dhallinta tahay ka faa'iidee intaanad gaboobin intaad caafimaad qabto ka faa'iidee intaanad bukoonin ninka dhallinyaradii mostly uu caafimaad qabaa war waqtiga caafimaad ka faa'iidaysa buu nabigu leeyahy intaanad xanuunsanin waqtiga haninimada hanigu ma aho qura maalka dabcan maalku waa ka mid laakiin caafimaadka ka mid ah qanaacada war haninimadaada ka faa'iidaysa intaanad faqrinin wax walba waayin firaaqada ninka dhallinyarada ah xidhiidhkiisu wuu yaryahay marka aad weynaataba xidhiidhka bini aadamkaa kugu sii badanaya mas-uuliyaadkaa kugu sii badanaya aabbaad noqon awowbaad noqon adeeraad noqon reerbaad uba weynaan tolbaad yeelan doontaa adiga kugu soo hirta noloshaba waa lagula yeelanaya markaad subaxii soo toosto intaanad gurigaaga ka kicin 10 problem oo aan ahayn kuwii adigu aad xalay qorshaysatay inaad qabato ayaa albaabka kuu taagan laakiin ninka dhallinyarada ahi waqtigiisa isagaa iska leh cid lama laha waa siduu isagu u bilaan garaysto no one bother garaynaya cid kale oo kaa soo dhex galaysaa ma jirto sidaa ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam war firaaqadaada ka faa'iidayso intaanad mashquulin nolosha ka faa'iidaysa buu nabigu yidhi intaanad geeriyoonin xadiidka imaam alxaakim baa warinaya iyo bayhaqi sheekh alalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya